Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidee u diyaariyaa maadada aan berrito gelayo? Waxaan kuu soo gudbinayaa qaabka ugu fiican, uguna wanaagsan, uguna waqtiga yar, uguna faa'iidada badan ee aad ku diyaarin karto maadada aad berrito galayso. Ka soo qaad, maanta waa maalin, berritana waxaan gelaynaa ama u fadhiisanaynaa ama caawa maado imtixaan ah. Waqtigaan haysana waa yaryahay. Waqti intee leeg baan ku diyaarin karaa? Sidee baan u diyaariyaa imtixaanka? Waxaan kuu soo gudbinayaa qaab aad u fiican oo la tijaabiyey iga guddoon. La yaab ma aha oo dhib ma leh inaad hesho naftaadu hesho 2 maalmood ama 3 maalmood ka hor maadadii imtixaanka diyaarinteeda adigoon waxba ka garanaynin maadadii. Waxaan aaminsanahay in badan oo ka mid ah ardada jaamacadaha ama dugsiyada sare inay maadooyinka imtixaanka ay diyaariyaan 2 maalmood ama maalin ka hor ama usbuuc barkiiba. Dhib ma leh. Ha degdegin. Isdeji. Ahow qof degan. Aniguba sidaasaan ahay. Welina waxaan ahay anigu arday ka mid ah arday jaamacadeed. Dhib ma leh. Dhammaan ardada jaamacadaha dhigata ama dugsiyada sare dhigata dhammaantood waa sidaa. Ceeb ma aha. Imtixaanaadka waxay diyaariyaan ka hor maalin ama 2 maalmood ka hor maalinta imtixaanka la gelin. Laakiin maanta waxaan idiin soo gudbinayaa fikrad cusub oo la tijaabiyey oo ku saabsan dariiq ugu fudud ee daraasada wax loo diyaariyo kaana saacidaya maadadii intaad bilowdo in aad dhammayso si kastoo maadadu adag tahay waqti yaroo kooban oo yar. Waa dariiq kuu faa'iideynaya macluumaad aad u fara badan oo ku saabsan qaabka ugu fudud aad maadada ku wada akhri karto. Waa dariiqo cusub, waa dariiqo ku salaysan baan leeyahay khibrad iyo tijaabo badan. Waa dariiq kaa saacidaya maadada bilow ilaa dhammaad inaad akhrido ee aan bilaabo imikana qaabkay tahay. Marka hore waxaa loo yaqaanaa qiraa'a degdega. Qiraa'a degdega markaan leenahay waa qiraa'a awaliya waxa loo yaqaano ama qiraa'a hore. Waa qiraa'o kaa qaadan karta muddo saacad ugu yaraan ah. Maxay tahay? Kitaabka soo qaado, hortaada dhig, ama muxaadaraadkii iyo duruustii macallinku bixiyey. Hortaada dhig ama meel kasta iyo mister kasta aad ka helayso. Ciwaanka fur, ciwaanka maadada akhri, macallinka magaciisa akhri, kadibna fahriska kitaabka ama buugga akhri. Kadibna bilow ciwaanka koowaad, kadibna u gudub ciwaanka labaad, kadibna u gudub ciwaanka saddexaad, kadibna u gudub ciwaanka afraad ilaa aad ka dhammaynaysid maadada oo dhan. Macnaheedu waxay tahay kitaabka iyo buugga aad akhrinayso ciwaanadiisa keliya aad akhrinaysaa, laakiin casharka hoose ee faraha badan ee qoran ma akhrinaysid. Ciwaanka iyo intuu qaybsamo kadib aad akhriyaysaa. Kadibna markaad dhammayso ilaa bilowga waxaad samaynaysaa nasiisho, xogaa baad nasanaysaa, nasasho yar baad samaynaysaa, nafta waad maaweelinaysaa. Waxbaad cunaysaa, waxbaad cabaysaa, waad nasanaysaa. Waxaad siinaysaa jaanis ay naftu ku nasato ila naftu xogaa bay wax akhriday. Markaad nasatay kadib waxaad soo qaadanaysaa buug yar iyo qalin ama waraaq iyo qalin baad soo qaadanaysaa. Kadibna waxaad ku khulaasaysanaysaa oo aad ku qoraysaa wixii aad ku soo aragtay iyo waxaad ka fahantay ciwaanadii aad akhriday iyo qaybihii. Markaad khulaasaysato u laabo kitaabkii kala fur. Waxaad bilaabaysaa waxa loo yaqaano alqiraa'atu sariica. Sariica waa qiraa'ada degdega ah baad bilaabaysaa. Maxaad samaynaysaa? Qiraa'adan waqtigani ama qaybtan waa qayb kaa qaadanaysa waqti aad u badan. Laga yaabo inay kaa qaadato saacad ugu yaraan 2 saacadood. Laga yaabo inay qaadato saacad iyo badh. Aduu waqtigii ka badan bay kaa qaadanaysaa. Kitaabka bilowgiisa ku laabo, kadibna fasalka koobaad akhri, casharka ku saabsan akhri, dhammaan akhri. Laakiin waqtigan waxba ka tegi maysid. Ciwaanadoo dhan baad wada akhriyaysaa. Casharka ku hoos dhan baad wada akhriyaysaa. Laakiin qiraa'adaadu waxay noqotay waa qiraa'o degdeg ah oo waxba ma xifdinaysid ee waad wada akhriyaysaa. Halkaa markaad wada akhrido ku laabo waraaqdaadii hore ama buuggaagii, ku qor wixii aad akhrintaas aad ka fahantay ee muhiima ee aad ku aragtay. Markaad ku laabato aad ku khulaasaysato, hadda waxaad xifdiyi kartaa waxaad u baahan tahay. Waxaad u baahan tahay baad xifdiyi kartaa. Wixii markaa xifdi u baahan xifdi. Wixii aad xifdi u baahan baad xifdinaysaa. Kadibna waxaad baadhaysaa
wixii su'aalaha macallinku diray, waxyaabaha muhiimka ah, meelaha uu macallinku calaamadiyey, intaas baa si gooni u xifdinaysaa. wixii aad u baahantay inaad xifdido aad xifdinaysaa. dariiqadan waa dariiq aad u fudud oo kooban oo waqti yar kaa qaadanaya maadadan aad wax badan ku xifdinayso. hadda waxaad awood u leedahay in aad gasho imtixaanka biidnillaah, aadna ku guulaysato oo aad gaadho darajo sare oo aad ku faraxdo oo kaa farxisa. intaas buu ku egyahay cashirkeena maanta, waana qaybtii afraad ee ka mid ah qaababka ugu fiican ugu fudud ee imtixaanka loo diyaariyo. haddaadan qaybihii hore arag, channelka Somali Islamic TV hoos u raac, waad ka helaysaa qaybtii koowaad, qaybtii labaad iyo qaybtii saddexaad iyo qaybtan tii afraad ah. haddaad u aragto barnaamijkan iyo cashirkan inuu muhiim yahay, faa'iidana leeyahay, channelka subscribe saar, gambaleelkana furo, share gare oo la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi